بسم الله الرحمن الرحيم marka ugu horeysa telefishinka Universal iyo telefishinka Home Cable oo runtii ah telefishino muddo dheer ummadan u soo shaqeeyay waa idin soo dhaweeyaa waxaana idinku salaamaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh bacda salaam waxaan rabaa inaan ka hadlo dhacdooyinkii tii ugu dambeysay oo habeen hore dhacdadii habeen hore waxay ka dhalatay saad ogtihiinba mucaaradad siyaasadeed oo soo jiitamaysay tan iyo intii xukuumadda la dhisay uu madaxda ka yahay ra'iisul wasaare xasan cali khayre waxayna Soomaalidu ku mahmaahdaa laba carab haddaan la kala celin kalama ciidan badnaa leeyahay marka hadii mucaaradadii na ay mar walba ay shaqo active hayso xukuumadina ay hawl active inay dalka ka qabata ay rabto marka mar walba isku dhaco inuu imaanayo arrin muuqata ayay ahayd sida hadda muuqata hay'adaha garsoorka oo hawshoodu tahay in ay ilaaliyaan sharciga dalka u yaala ayaa waxay carabka ku dhifteen in dawladda shisheeye lacag laga soo qaatay si loogu dumiyo xukuumadda hadda jirta taas oo uu sheegay si rasmi ah xeer ilaaliyaha dalka waxaad ogtihiin marka xeer ilaaliyuhu runtii waa xeer ilaaliye qaran waana xeer ilaaliyihii guud runtii markii uu hadlay ee uu yidhi arrimo qaran dumisa oo shisheeye oo wato ayaa dalka mataqaanaa ka socda arrintaasna in qaranka lagu waxyeeleeyo ayaa qiyaamo qaran oo ku tilmaama runtii waa arrin marka rabta in laga dhulan gaaro oo laga warsugo oo xaaladaas mataqaanaa ay Soomaalidu ay eegto oo aynana yaraysan runta iyo waaqicana mataqaanaa halkaas ayuu ka imaanayaa waxay shacabka Soomaaliyeed horay loo dhaxal siiyay in ay yiraahdaan markii doorasho timaado ninka madaxweynaha noqonaya muxuu lacag heestaa dawladeesa wadata labadaas arrin waxay ahayd arrin soo jireen oo shacabka Soomaaliyeed aad iyo aad dhibaato ugu ahayd maxaa yeelay waxa la rabaa marka uu madaxweyne la dooraayo inuu ka yimaado shacabka Soomaaliyeed oo uu noqdo mid rabitaanka shacabka ku yimaada laakiin hadii mid dawlad shisheeye ay wadato oo lacag ay soo siisay oo isagu mataqaanaa markaas danaha dawladdaas shisheeye hadhow abaalkeedii gudaaya waxaad garan kartaa laba qaran hadda isku dan maahan marka waxay noqonaysaa Soomaaliya inay meesha ka baxdo hadii maalin walba dawlad shisheeye ay mataqaanaa lacag cid ku naxariisaysana ma jirto dawladaha hadda saas noo gelaya oo mar walba nagu howlan waa kuwa aan mataqaanaa aan wadaagno walaaltinimo islaamnimo oo maanta mataqaanaa ay ahayd inayna taakuleeyaan aad iyo aad aan uga xunnahay waxaana leenahay ha ka xishoodaano walaalahooda muslimiinta inay dhibaato u geystaan ugu dambeyntii waxaan ugu baaqayaa hay'adaha garsoorka in cadaaladda iyo shuruucda dalka si hufan oo cad loo maamulo
looguna dhaqmo si muwaadiniintu cadaalad u helaan waana in baarista la dedejiyo si markaasi siyaasiga xiran oo cadaaladda u wajaho cadaaladana mataqaanaa oo isku difaaco sida xaqa oo leeyahay dawladduna waxay xaq u leedahay inay wax eedayso haddii ay dhibaato ay qof ka tuhunto laakiin muhiimaddu waxaa waaye in ay mar walba cadaaladdu shaqayso oo uu noqdo dalkeenu dal markaas cadaaladiisa lagu kalsoonaa karo shacabka soomaaliyeed waxaan ugu baaqaynaa in ay nabadgelyadooda iyo qarannimadooda ay ilaashadaan maxaa yeelay qabiil qaran waa naqa waay waxaan maanta maraynaa 27 sano in ka badan ayaan qabiil ku shaqeeyayna iyo xagjirnimo iyo burabaleem iyo qax iyo barakac marka maanta waa maalintaan ka soo kabsa lahayn madaxda dawladdu 4 sano ay haysataa 4 sano hadday dhamaatana tartan kale la gelaa waxa aan rabnana maanta waxa waay qof iyo codkiis in muwaadinka Soomaaliyeed uu hoggaankiisu doorto 2020 marka taasi ayna nooga fashilno oo annagu aan u naqano dad gara kara waxa ka maqan maxaa yeelay annagu ururada caalamiga ahaydna waa ka hirnay dawladihii aan ma taqaanaa wax naga dhaxeeyeen geeska Afrikaan ku noolnahay xuquuqdeena dhameed oo siyaasadeed oo diblomaasiyadeed maqan maanta marka waxaa loo baahan yahay in aan priority-ga la siiyo ummadda Soomaaliyeed badbaadadeeda iyo soo nooleynta qaranka ummadda Soomaaliyeed marka aad iyo aad u mahadsantihiin